barashada luqad khalaad aad ay caqabadeedu badan tahay dabcan luqadaadi ahayn inaad baratid muddo ay kugu qaadan kartaa caqabado badanna waad kala kulmi kartaa balse sidee isku bari kartaa luqadda Ingiriiska muuqaalkan waxaan kugu wadaagi doonaa 7 talo oo ah qaabkii aad Ingiriiska aad isku bari lahayd haday noqon lahayd readingki writingki listeningki iyo speakingki afartaas ayayna ka kooban tahay luqadda Ingiriiska maxay faa'iido ku leedahay inaad baratid luqadda Ingiriiska waa su'aal aad isweydiin kartid oo dad baa laga yaabaa inaysan muhiim u arkinba in luqadan ay tahay mid muhiim ah faa'iidooyinka ay leedahay inaad baratid luqadan Ingiriiska koow horta waxay tahay waa international language wadan walbo ama meel walba adduunka aad tagtid English ayaa looga hadlaa marka haddii aad aragtid adduunka aad la falgashid meel walba haday noqon lahayd shaqo haday noqon lahayd inaad qof la hadashid ajaanib ah wax walba aad u baahan tahay haddatan caalamka waxay kaaga xiran tahay inaad baratid luqadda Ingiriiska waliba haddii aad tahay dhalinyaro faa'iido kale ee leedahay waxay tahay 80% resourceska internetka ku jiro waxay ku qoran yihiin luqadda Ingiriiska technology-ga ayaa casriyoobay wax walba internetka aad ka helaysaa marka haddaad rabtid inaad internet wax ka baratid luqadda Ingiriiska aad ku qasban tahay dabcan sidoo kale dhanka waxbarashada aad ayay kaaga saacidaysaa haddii aad taqaanid luqadda Ingiriiska oo waxbarashadaada waxay noqonaysaa mid guuleysata haddii aad ku fiican tahay luqadda Ingiriiska waxba yaan hadalka ku dheeraanin 7 tale ee halkan aan kugu hayo aan u gudo galo sidoo kale qaybta dambe ee muuqaalka waxaan kula wadaagayaa personal experience-gayga iyo aniga sidii aan isku baray luqadda Ingiriiska waqti ay ugu qaadatay iyo jaaniga aan soo maray ayaan kula wadaagi doonaa ee aan ogaan qodobka koobaad ama talada koobaad ee aan ku siinayo waxay tahay si aad u baratid luqadda Ingiriiska ama aad isku bartid adiga laftirkaagaba waxaad sameyn kartaa inaad environment English aad gashid waxaan kala jeedaa wax walba aad sameynayso waa inay English ku jiraan tusaale filmaan ayaad daawataa filmaanta kaliya kuwa fan broadcast daawanay af Soomaaliya lagu turjumo waxaad daawataa kuwa Englishka ku baxaya daawo marka ama haday noqon kuwa subtitle English leh ama kuwa si toos ah English ugu baxaya deeyin daawo filmaanta English ku baxay sidoo kale documentary-yaasha ayagana daawo English ku baxo sidoo kale waxaad dhageysataa waxyaabaha English ku baxo sida podcast-yaasha audio books-ka buugaagta dartaan la akhristo laftirkooda waxaa jira ayagoo audio ah oo la soo cod laga dhigay marka kuwaas laftirkooda dhageysigooda badso wax badan aad ka faa'iideysaa wax walba environment-kaaga ku saabsan ama aad sameynaysid waa in English ku jiraan taasna waxay ka caawinaysaa haday noqon lahayd ku hadalka haday noqon lahayd qoritaanka laftirkiisa ama akhriska inuu ku fududaado talada labaad ee ku siinayna waxay tahay inaad practice gareysid ku hadalka Englishka dabcan luqad ayaad baranaysaa luqadaas aad baranaysid haddii aadan ku hadlin ma keeni kartid wax walba daadan ku hadlin waxa way waad iloobaysaa dabcan luqadan baranay hadaa laakiin bil dhanba English kuma hadlin waxa way way adkaanaysaa marka ku hadalkaaga laazim oo joogtay raadso dad asxaab ah oo English ku hadlo oo aad la hadli kartid haddii aad wax baranaysid jaamacadda dhigtid iskuul aad dhigatid asxaab English ku hadasho ama dad mataqaana classmates-kaaga la sheekayso oo English-kaas ku bara ayaga ogsoonow mar walba inaad qalad samaysid waa qayb kamid ah barashada luqadda marka ha ka baqanin inaad qalad samaysid marka asxaab samayso ku hadalkiisa joogtay oo ku hadal luqadda Ingiriiska taasna waxay ka saacidaysaa in kalsoonidaada ku hadalka ay ziyaado sidoo kale vocabulary-kaaga ayay dhisaysaa oo erayo badan aad barato ayay ka saacidaysaa sidoo kale waxay ka saacidaysaa si fluent ah inaad Ingiriiska aad ugu hadli kartid haddii mar walba aad joogtaysid ku hadalka luqadda talada saddexaad ee ku siinayaan waxay tahay inaad dhageysiga luqadda aad galaysid taas maxaan kala jeedaa dhageysiga waxaa kala jeedaa dabcan in luqadda mar walba waxyaabaha English ku baxo aad dhageysatid kaliya daawasho ma dhageysiga dhagahaaga waa inay si actively ay u dhageystaan waxa yeeraya ama luqadda inay si fiican u dhageystaan marka waxaad dhageysan kartaa audio books jiro buugaagtan mataqaana loo bedelay audio-ga ayaad dhageysan kartaa podcast-yaasha ayaad dhageysan kartaa marka damo aad dhageysatid oo aad noqotid active listener oo dhageysigaaga uu fiican yahay waxay ka caawinaysaa laftirkeeda ku hadalka luqadda ay ka caawinaysaa mar hadduu dhageysigaaga fiican yahay ku hadalkiina uu ku fududaanayo marka taladu waxay tahay inaad dhageysiga aad ku fiicnaatid mar walba oo aad dhageysatid dhageysigaagana uu noqdo mid aad u fiican talada saddexaad waxay tahay akhriska asagana waa qayb kale oo kamid ah barashada luqadda waa inaad akhrin kartid Englishka waa inaad buug akhrisan kartid waa inaad akhrisan kartid articles waa inaad akhrisan kartid blogging waa inaad akhrin kartid waxa dhan internetka ay ku jiraan internetka gal raadi blogging-yaasha raadi aad rabtid waxa raadisa buugaagta Englishka ku qoran raadi kadibna akhriso akhriskaaga hadduu aad u fiicnaado dabcan luqadaada ku hadalkeedana wuu fiicnaanayaa waxyaalo badanna aad ay kaaga caawinaysaa talada xigtana waxay noqonaysaa inaad qoritaanka aad badisid qoritaanka sideed sare ugu qaadi kartaa dabcan waxaad sameyn kartaa website ayaad samaysan kartaa tusaale halkaasna article ayaad ku soo qori kartaa sidoo kale qasab ma aha inaad internetka bas wax ku soo qortid waxaad sameyn kartaa book ayaad qaadan kartaa dabcan buuggaas ayaad ku qori kartaa sheeko haddaad rabtid article ayaad ku qori kartaa marka mar walba qoritaankaaga badi
haddii qoritaankaagu uu fiican yahay inaad dadka aad la communicate garaysid ayaa kuu fududaanayso haddii noqon lahayd inaad email qof u dirtid inaad shaqo dalbatid laftirkeeda ayadana waxay u baahan tahay inaad fariin dirto marka fariinta aad diraysid mar walba waa in ay tahay mid formal ah luqadana sideedaba waxaa waaye qayb formal iyo qayb informal ah midda ugu muhiimsan waxay tahay inaad formalka aad baratid marka horeeto kadibna midda hadal suuqeedka ah ama mataqaanaa luqadda mataqaanaa informalka dhalinyarada ama asxaabta ama familiga ay ku wada hadli karaan ayagana ayar aad ku baran kartaa taasna waxaad ku baran kartaa dabcan inaad samaysatid dad asxaab ah oo aad mataqaanaa si casual aad ula hadli kartid marka taasna way kaa saacidaysaa oo hadal suuqeedkaas asaga inaad baratid way fiican tahay oo luqadda kaliya qof asxaabtaada kulama hadli kartid erey formal ah saaxiibkaaga yani ereyga la rabo inaad qof boos kula hadashid ama qof ku shaqaaleysiinayo kulama hadli kartid saaxiibkaaga qoritaanka aad ayuu muhiim u yahay qoritaankaaga sare u qaad talada kale oo ku siinayno waxay tahay in aad ka faa'iidaysatid technology-ga hadda jiro systemyo badan ayaa soo baxay applicationo badan ayaa jiro oo luqadda kaa saacidaya inaad baratid dhan walba hadday noqon lahayd akhriskii qoritaankii wax walba oo ku barayo luqadda ingiliishka aas-aaska ilaa iyo heerka aad rabto marka technology ka faa'iidayso dartaan applicationo badan ayaa jiro applicationadaas raadi applicationada aad ka faa'iidaysan kartid oo aad internet aad ka baari kartid oo hadhowdina kaa caawinaya inaad luqadda baratid waxaa ka mid ah application la yiraahdo Duolingo mid kaloo la yiraahdo Memrise mid la yiraahdo sidoo kale Fluent U mid la yiraahdo sidoo kale Hello Talk mid la yiraahdo technology-ga iyo internetkaba wuxuu qayb ka noqon karaa ugu muhiimsan inaad luqadda ingiliishka adiga aad isbartid adigoo xataa aan cid kale xataa u baahnayn talada kalena waxay tahay ayadana in aad ku biirtid yani asxaab aad samaysatid dabcan ama community hadday noqon lahayd ama dad bulsho ah oo mataqaana luqadda ingiliishka ku hadlo aad la saaxiibtid oo aad mataqaana asxaab la noqotid dabcan environmentkaas aad ku jirtid dadkaas aad la sheekaysanaysid waxaa waaye waxay kaa saacidaysaa in aad luqadda dhan walbaba ku hadalka hadday noqon lahayd dhagaysigii wax walba way kaa saacidaysaa kalsoonidaana way dhisaysaa dadka dhibka waxaa waaye dadka qaar waxaa jiro luqadii yaqaana laakiin qof markana inay la hadlaan aan la hadli karin marka kalsoonidaas ayaa dhibka meesha uu ka jira ay tahay marka kalsoonidaas si ay macnaha u boosti garaysid waxaa samayn kartaa asxaab samayso English ku hadasho dabcan qof aan Soomaali ahayn oo aan luqad kale kula hadli karin aan ka ahayn English marka taas waxay ka saacidaysaa dhan walba hadii noqon kalsoonida iyo mataqaana wax la mid ah marka mar walba ku hadalka kalsoonida ayaa muhiim ah waxaan haddii aad luqad baranaysid waxaa loo baahan yahay inaad joogtaysid consistency ayaa loo baahan yahay dabcan waqti ayay kugu qaadan kartaa qasabna ma ahan inaad luqadda oo dhan aad soo aroorisid ma la soo aroorin kara dabcan maalin walba erey cusub ayaad baranaysaa maalin walba wax cusub ayaad baranaysaa marka luqadda fundamentalka ayaa muhiim ah aas-aaska inaad baratid marka horeeto inta kale ayada ayaa isdhisayso waqtiga ay rabta ayay qaadan kartaa marka ha ka fikirin ha isdhihin kaliya luqadii mataqaana in hal mar soo wada ku barta waxaan luqad aad u weyn waaye waxaa waaye wax la soo koobi kara maahan marka maalin walba in kooban ayaad baran kartaa haddii aan kula wadaaga marka ani ahaanteyda personal experience-gayga sidee ayaan kusoo bilaabay sidee ayaan ku bartay xagaysa mataqaanaa iga saaciday inaan mataqaanaa luqadda aan fahmo aan ku hadlo dhagaysigeeda ku hadalkeeda akhriskeeda dhan walba horta aniga barashada Englishka dhanba waxaan soo bilaabay 2008 ayaan soo bilaabay dabcan 2008dina waa sanadkii aan waxbarashada kow aan soo bilaabay aniga inta aan primary tagin waxaa la igay meel private ah oo aan ku baran jiray luqadda Englishka Sawaaxiliga oo ah luqadda Kenya looga hadlo xisaabta iyo Carabiga dabcan afartaas ayaa asaas ahayd markaas waxaan sameyn jiray galinka hore dugsiga aadi jiray galinka dambana waxaan aadi jiray private-kaas marka halkaas ayay orta jaaniga anigu ka soo bilowday halkaas ayaana ka bartay sanad ayaan dhiganayay alxamdulillah aad ay ii saaciday inaan mataqaanaa aan private-kaas aan dhigto waxay iga saaciday taas marka sanad kadib iskuulka primary-ga la geeyay imtixaan ayaa la iga qaaday waxaa la hoos keenay book oo English ah iyo mid Sawaaxili ah ayaa la hoos keenay akhri ayaa la igu yiri akhriskaygan aad ayuu u fiicnaa macallinkii wuxuu yiri ninkan waa nin da'yar laakiin class wuxuu u qalmaa tusaale class 5 oo kale ayuu u qalmaa balse maadaama uu da'diisa yar tahay muuqaalkiisuna uu yar yahay waxaan geeninaa class 4 marka aniga primary class 4 ayaan ka bilaabay waxay iga saaciday sanadkaas bas inaan ka soo boodo class 1 ama nursery 1 2 3 inaan ka soo boodo ay iga saaciday dabcan waxaa keenay sanadkaas oo aan bartay wixii asaasiga ah primary ayaan soo dhameeyay secondary ah hadana ku xijiyay intaas ba English ayaan wax ku baranayay okay ayaan wax ka baranay markii aan soo dhameeyay 2017 ayaan dhameeyay secondary-ga 2017 markii aan dhameeyay dabayaaqadiisa 2018 dhexdiisana hindi ayaan waxbarasho u aaday jaamacadeed oo bachelorkayga hindi ayaan ka soo sameeyay alxamdulillah asagan English ayuu ku baxay 4 sano ayaan halkaas ku soo qaatay oo nolosheeda dhan walba iska dhistay oo mataqaana dhan waxbarasho dhan khibradeed experience everything hadana 2022 waxaan bilaabay master halkan aan joogo tartan Qobrus masterkayga ayaa gabagabeeyay dabcan Englishka waa aas-aaska inaad mar walba iska soo dhistid qofka aas-aaska markuu iska soo dhiso wax markaad weynaatid waxbarashadu way ku fududaanaysaa inaan 12 sano aan waxbarasho aan ku jiro oo aan English wax ku barto dabcan bay'ad
aan Soomaali ahayn aan ku dhaqmo dad aan Soomaali ahayn aan la dhaqmo oo aan la hadlo haddii noqon lahayd professor macallimiin arday ajaanib ah wax walba marka taasna waxay iga saaciday ku hadalkii fahamkii kalsoonidii luqadda dhanna markaad baratid waa kalsoonida inaad si kalsooni leh aad ku hadli kartid marka taasna waxa waaye aad ay aniga ii saaciday sidoo kale waxyaabaha iga caawiyay waxaa kamid ah daawashada filimaanta Englishka ku baxo sidoo kale documentary-yaasha ayagana Englishka ah sidoo kale akhrinta buugaagta Englishka ah ayadana sidoo kale way saaciday ilaa ay haddana waa akhriyaa buugaagta aad ayayna ku caawinaysaa sidoo kale ina article aan qoro website waxa jira gamaadi.com la yiraahdo oo aan iska lahaa balse hadda hawada ka maqan kaasoo article aan ku soo qoray jira asagana English ah sidoo kale waxa iga caawiyay ayagana inaan dad aan Soomaali ahayn aan la dhaqmo oo aan la macaamilo oo haddii noqonad arday iyo bulshada nooc walba ay ahaataba sidoo kale asxaab aan Soomaali ahayn inaan sameesto taasna way caawisay dhanka madadaalada ayadana YouTube mar walba waa lagu jiraa waxba la daawadaa marba hadii wax daawanaysa ayadana waxa fiicnaan lahayd inaan mataqaana dad wax ka faa'iideysa daawad marka sidoo kale YouTuberada Soomaalida markii laga tago ayagana waxaan daawadaa YouTuberada Englishka ku hadlo oo mataqaana internationalka ah ayagana waan daawadaa markii dhanka madadaalada la yiraahdo marka waxyaabahaas iyo kuwa kale badan buu iga caawiyeen waxaan xasuustaa sheeko fani ah yar ajaanib ah oo masaari inuu yahay jeclahay oo hindi markaa joognay isku kalaas ahayn waxay ugu yirnaa Englishka markii ay xanaaqsanahay kaliya ayaan ku hadli karaa tusaalaha macallin iga xanaajiyo si fiican oo la hadli karaa laakiin markii kale Englishku ii gambinaya oo igu adeegayaan marka taasna fani ay la noqotay qof kale waxa jira asagan igu yiraahdo kor markaan kaligay ahay luqadda saan uga hadli karo lama qiyaasayo laakiin markaan qof damacay inaan la hadlo waa ay kala fakanaysaa baash talooyinka aan kugu wadaagayo iyo sidoo kale personal experience-yga muuqaalka inta ayuu ku egyahay haddii halkaan soo gaarto waa ku maasantahay channelka haddii aad weli subscribe saarin fadlan subscribe saaro gambaleelkana furo si muuqaaladan soo dhalkan ay ku soo gaaraan muuqaalo badan ayaan soo wadaa aysan ku dhaafin waa ku maasantahay daawashada muuqaalka intaan kulmayna muuqaalka waxay kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo